Soomaaliya is-ilaaliya adduunyada waxa ka dilaacay xanuun cusub oo sidii corona oo kala ah fayraskaas oo la sheegay in uu xataa ka fidid badan yahay ama dadka sidoo ugu dhacayo ay ka fududahayba coronihii ilaahay baa wax kasta oo qadar kale og laakiin sida hore loo sheegay dadka wax saadaaliya 25 ku gabi ahaan inuu ka kulaan doono una ka duunaan doono 24 durtaba waxa la arkay mid kamid ah arimihii saadaalinta wax kasta ilaahay baa dad muslimiin ah laakiin sida hore loo sheegay in uu adduunyada ku soo kordhi doono fayraskaas oo dhammaan umada dadka dunida ku nool kala bar ku dhici doona arintii waxba laga arkay sida la socotaa wadanka China waxa ka soo dilaacay fayraskaas oo runaantii sida la sheegay ilaa hadda shaybaanku xataa aan u haynin dawo fayraskaasi waxa la sheegayaa in uu dadka xumad ama qandho xun ku ridayo qandhadaas oo xataa dadka kalifaysa inay gabi ahaanba marka ugu dambaysa nafta ka saarto soo kalena wuxuu leeyahay madax xanuun badan dhun xanuun badan iyo qufac waa isla coronihii laakiin in badan ka duwan fayraskani wuxuu dadka badana daada yar aad ugu daran yahay halka daada dadka waaweyn uu iska normal yahay fayraskan aad arkaysaan oo sanadkan cusub oo waliba bishii ugu horeysay lagu jiro lagu aftaxay oo China ka soo dilaacay sida hore u go'day sida coronahu soo kale China ugu soo dilaacay ayaa waxa la sheegayaa imika dhibaatada jirtay tahay in uu safarada dadka u raacayo maxaa yeelay lama dareemi karo sidoo ku fidayo waxaan la sheegayaa in uu xataa uu ka fudud yahay qofka inuu qaado sidii bariga hore corona u qaadiyay fayraskan lama sheegin ilaa hadda meel oo asal ahaan iyo xayawaankii waxa keenay laakiin mar qura ay adduunyada lagu arkay oo dunidu waxa laga baqanayaa hadii uu wax yar China soo dhaafo in sidii corona oo kale bandow la geli doono oo xataa dhaqdhaqaaq uu yaraan doono iyo isku socodku intaba runtii waxyaalaha qaar ma karan kartid waxaan ma siyaasad ba ma wax looga jeedaa ma arrin la ogaaba maxaa yeelay dadkii hore u saadaalinayay dhamaadka 24 waxay sheegayeen 25 inuu noqon doono sanad ka duwan gabi ahaan 24 ilaahay dhamaanteena badbaadiyo idinkuna Soomaaliya waxyaalaha qaar runtii waxa laga yaabaa in aad fududeysato laakiin uu si sayal ama si yaro fudud uu kugu soo galo sida socoteen coronihii in dad badan oo muwaadiniin Soomaaliyeed ay waqtigii